kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada warbixin aan ku eegayno xogta dagaalka dalka Itoobiya. askari ka badbaaday dagaal socday muddo 12 saacadood ah iyo qaabkii uu uga badbaaday iyo askar kale oo sidoo kale ka sheekaynaysa wixii qabsaday markii dagaalka uu ka bilowday gobolka waqooyi ee dalka Itoobiya. laba ka tirsan askarta Itoobiya ayaa BBC afaan Oromo uga warbixiyay wixii ku qabsaday gudaha xeryahooda kadib dagaal habeen lagu soo qaaday bilowgii dagaalka ka qarxay gobolka Tigreega bishii la soo dhaafay. weerarkaasi oo ay soo qaadeen dagaalyahano lala xiriirinayo maamulka gobolka ee haatan xilka laga tuuray. kooxda TPLF oo horay u xukumi jirtay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala ayaa sheegtay inay fulisay weerar ka hortag ah markii ay indhaha dunida ku sii jeedeen doorashada Mareykanka, iyadoo sheegay in ay rumaysnaayeen in weerar lagu soo qaadi doono ama weerar ay ku soo qaadi doonaan ciidanka federaalka dawladda. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sameeyay argoosi isagoo amray howlgal military oo sababay in xilka laga tuuro maamulkii gobolka kuna qasbay ciidamada TPLF inay galaan buuraha si ay ula dagaalamaan waxa ay ugu yeereen kuwa ku soo duulay. way adkayd in warbixin sax ah laga helo dagaalka sabab la xiriira isgaarsiinta oo laga jaray gobolkaasi. askartan ayaa tilmaamay kala qaybsanaan dhanka isirka oo ka dhex jirta militariga Itoobiya, iyadoo qaar ka mid ah ciidamada Tigreega lagu eedeeyay in ay la safteen kuwa TPLF. mid ka mid ah askarta ayaa waxa uu yiri, waxaan ku sugnaa xerag u dhow magaalada Adigrad oo ku taala xadka Eritrea abaarihii 12 iyo barkii 3 November. aniga iyo ciidamo kale ayaa waxaan fariimo qoraaleed ka helnay saaxiibadeen ku sugnaa saldhigga magaalada Agula dhanka waqooyi bari ka xigta caasimadda Tigreega ee Maqale, iyaga oo dhahaya waana la hareereeyay, haddii aad noo imaan kartaan oo aad nabadbaadin kartaan imaada. waxyar kadib xeradeena ayaa sidoo kale la hareereeyay, iyada oo boqolaal ciidamada gaarka ah ee TPLF iyo maleeshiyad ay saldhig ka samaysteen banaanka. qaar ka mid ah ciidamada ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega oo goor sii horeysay ka tagay xeradeena ayaa la socday. waxaanu u tagnay korneelkii hayay furaha qolka ay ku jiraan hubkeena, waxaan u sheegnay in uu noo furo. wuu diiday isagoo sheegay inuusan haysan amar ah inuu sidaasi sameeyo. wuxuu ahaa Tigree, waxaana ka shakinay in uu qayb ka ahaa qorshahana lagu soo weeraray. qaar ka mid ah ciidamadii isaga la joogay ayaa kula murmay inuu furo qolka kaydka. qaar kale ayaa isku dayay inay furaan albaabka. ugu dambeyntii waan helnay hubkeena. ciidamada TPLF markan way bilaabeen in ay rasaaseeyaan. waxaan ka samaysanay gudaha iyo banaanka xerada, annaga oo dhagaxaan iyo derbiyada ka dhiganayna gaashaan. waxay ahayd abaarihii 1 markii uu dagaalku qarxay. waxa annaga iyo iyaga inoo dhaxaysay masaafo aan ka badnayn 50 mitir. waxaan dilnay in ka badan 100 ka mid ah, waxay naga dileen 32. qaybtii aan ka tirsanaa hal qof ayaa ka dhintay, 9 kalena waa ay dhaawacmeen. inta badan ciidamada naga dhintay waxaa sabab u ahaa ciidamada Tigreega ee u goostay dhinaca kaleete. dagaalku waxa uu socday 12 saacadood ilaa duhurkii, markaasi oo taliyaasheena sare ay nagu amreen in aan joojino dagaalka, hubkeena aan ku celinno qolka kaydka, isla markaana aan dib ugu laabano qolalkeena. arrintaasina waan aqbalnay. wax yar kadib waxaa yimid duqeydii magaalada. waxay nagu qalqaaliyeen in aan isa soo dhiibno abaarihii 4. waxaana lagu amray in aan dhammaan wixii ciidamadeena haystaan aan ku wareejino xoogga TPLF mar kale. taasina waan aqbalnay. kadib waxaana loo sheegay in aan soo aruursanno alaabteena oo aan korno gawaarida xamuulka. dhaawacyadeena ayaan hore u qaadanay. waxaana lagu qasbay in aan ka tagno meydadka. magac beenaha ayaan sheegtay. ciidamada TPLF ayaana geeyay mid ka mid ah saldhigyadooda ku yaala magaalada Abyadi oo 150 kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xigta magaalada Adigrad. ciidamada dhaawac ah ma helin wax daaweyn ah muddadaas oo dhan. subax walba waan la soo wacayay. waxaan ku qasbanayn in aan sheegno magacyadeena, isirkeena iyo waliba doorkeena ciidanka. waxaan u sheegi jiray magac been ah. waxay ahayd sida meel lama degaan ah, aad ayayna u kululayd. biyo yar ayaan haysanay oo aan cabno. subax walba waxaana la siin jiray shaah aan sonkor lahayn oo lagu shubay koobab caag ah oo dhexda laga jaray. cuntadeena maalintii oo dhan waxay ahayd 2 rooti ah oo yaryar. ciidamada saldhigyada kaleete ayaa sidoo kale la keenay Abyadi. waxay noo sheegeen in sidoo kale la soo weeraray. qaarkood ayaa isdhiibay iyaga oo aan dagaal gelin.
qaar kale ayaa iska caabin ka xooganteena muujiyey iyaga oo 4 maalmood dagaalamayay. qoryaha Kalashnikov hub culus iyo xitaa gantaalada meel dhow wax ka toogta ayaa loo adeegsaday dagaalka. qaar ka mid ah ciidamadeena waxa ay u qaxeen dhanka Eritrea. dharka ciidanka waa la gubay. kadib 2 toddobaad xoogga TPLF ayaa na siiyay 3 ikhtiyaar in aan ku biirno, in aan Tigray ugu noolaano sida dad rayid ah amaba aan guryaheena dib ugu laabanno. ta ugu dambaysa ayaan qaadanay. balse taliyaasheena sare, kuwa farsamada, haweenka ciidamada ah iyo kuwa adeegsan kara hubka culus lama siin wax ikhtiyaar ah, ayaga oo kumanaan ah ayaa lagu hayay Abiyaadi. inteena kaleete waxaana loo sheegay in aan iska bixino dharka ciidanka. waan diidnay annaga oo u sheegnay in ayna dili karaan balse aanan taa samaynin, isla markaana uusan noo ogoleen sharciga militariga iyo in dharkeenna uu yahay sumcadeena. ugu dambayn heshiis ayaan gaarnay in aan iska bixino dhammaan dharkeenna kadibna la gubo si aysan kuwa kale u isticmaalin. ciidamada TPLF ayaa muuqaal ka duubay gubitaanka dharka ciidanka. waxa ay qaateen dhammaan qalabkeenna, faraantiyo, saacado iyo weliba lacag. waxay ahayd abaarihii 3 maalin Jimco ah oo naloo diyaariyay in lagu guro gawaari xamuul ah mar kale dhaawacyadeena hore ayaan u sii qaadanay, balse midkoodna kuma jirin gaarigii aan la socday. ilaa 500 oo naga mid ah ayaa ku jirtay gaari walba. waxaana dhihi karaa waxaan guud ahaan ahayn ilaa 9,000 oo ciidan ah. waxaan gaariga ku fadhinay si ciriiri ah ilaa aan ka baxno Abiyaadi abaarihii 11. waxaan wadada ku safraynay muddo saacadaha ilaa ciidamada gaarka ah TPLF ee la socday gawaaridayna ay nagu daadiyeen qarqarka webiga Tekeze ee ku yaala xadka u dhaxeeya gobolka Tigreega iyo Axmaarada. gawaaridu waxa ay yimaadeen waqtiyo kala duwan. dhammaanteen koox ayaan isku qaybinay. doon ayaana uga gudubnay webiga. 6 saacadood ayay nagu qaadatay in aan webiga dhanka kale uga gudubno. waxaan kadib lugaynay ilaa 16 saacadood si aan u gaarno magaalada Sekota ee gobolka Axmaarada. waxaan hadda ku suganahay xarun booliis oo ku taala magaalada. si wanaagsan ayaa naloo qoodiyay, aadna waa naloo daryeelay. dadka dhaawaca ah waxaa lagula tacaalayaa isbitaalka in ka badan 3 toddobaad kadib weerarka. waxaan maqlay in qaar ay ku dhinteen wadada, meydadkana laga tagay. xasan Ibraahim waxaan ciidamada ka tirsanaa muddo 8 sano ah. waxaan ku sugnaa Adigraad, balse xero kale ayaan joogay. waxaan ahaa waardiyihii shaqada ku jiray 3 November oo ilaalinayay xerada abaare 10 ilaa saqdhexe. qaar ka mid ah ciidamada way hurdayeen. isla markii aan dhammaystay shaqadayda waxaan maqlay rasaas. wax waraha kama hayn waxa dhacayay. banaanka ayaan u baxay si aan u arko. ciidamada gaarka ah ee TPLF iyo maleeshiyaadka ayaa hareerayay xeradeenna, wayna soo galeen. badankeen maanaan hubaysneen. waxay ciidamada oo aan anigu ku jiro ku amreen in ay isa soo dhiibaan. waan diidnay annaga oo u sheegnay in ciidamada federaalka aysan isku dhiibayn kuwa gobolka. balse ugu dambayn waxaan qaadanay amarka taliyaasheena oo ahaa Tigray. waxaana lagu hayay xerada ilaa 6 November. ciidamada TPLF ayaa kadibna nasaaray gawaarida xamuulka, waxayna noo qaadeen magaalada yar ee Idagahamus oo ilaa 26 kilomitir u jirta halkii aan ku sugnayn. halkaasi ayaana lagu hayay muddo 7 toddobaad ah. kadibna waxaana loo qaaday Abiyaadi. halkaasi waxaan kula kulannay dad badan oo daacad u ahaa dawladda federaalka oo isugu jiray booliska, ciidanka militariga iyo kuwa cirka. waxaana loo qaybiyay kooxo. waxaana lagu hayay 3 meel oo kala duwan: xero military, iskuul tababar iyo meel bannaan ah oo xiran. ma jirin biyo lagu qabaysto. wax yar oo biyaha oo la cabo ayaa yaalay. waxay ahayd sidana loogu talagalay in aan ku dhimanno kuleelkaas. waxaan seexannay qolal yar oo aad ciriiri u ahaa. in ka badan 3 toddobaad kadib waxaana la dooransiiyey haddii qoys iyo carruur ay noo joogaan Tigray in aan rayd ahaan ugu noolaano, amaba aan ku biirno TPLF ama aan iska tagno. badankeen tan dambe ayaan doorannay, balse kuwa farsamada, kuwa isticmaali kara hubka culus iyo taliyaasha sarsare waxaa loo sheegay inay joogaan. dahab ayaa la xaday. aniga waxaan ka mid ahaa ciidamada farsamada, balse been ayaan sheegay si aan u baxo. waxaan u malaynayaa inaan ka tagnay 3,000 ilaa 4,000 oo qof. ku dhawaad 9,000 oo naga mid ah ayay u suurto gashay inay baxaan. waxaana lagu riday ilaa 28 gawaarida xamuulka. muddo saacadaha ayaana soconnay annaga oo dhex mareenna meelo lama degaan ah ilaa aan gaarnay webiga Tekeza.
safarku aad ayuu u adkaa qaar ka mid ah ciidamada way ka dhaceen gawaarida lugta ayayna ka jabeen qaar kale way xanuunsadeen balse waxaan haatan ku suganahay Sekota qaar ka mid ah ciidamada waxay sheegeen inaysan jirin hawlgal samata bixin ah balse ay garoonsan yihiin in xaaladdu ay adkayd waxaa jira weerar aan xog badan laga hayn oo lagu qaaday ciidamada federaalka saraakiishii ku sugnaa saldhigyada kale waxay sheegeen in ciidamada TPLF ay saacado iyo waliba katiinada ka xadeen askartii dhimatay waxay xitaa qaateen dharka ciidanka meydadkana iyagoo qaawan ayay ka tageen muddadii 8 sano ahayd ee aan ku noolaa Tigray waligay uma malayn in ay tani dhici doonto toddobaadon ka hor waxaan beeralayda ka caawinaynay in ay beertaan dalagooda ayna la dagaalamaan ayaxa warbixintan daawadayaal dhageystayaal waxaan ka soo xignay warbaahinta BBC-da